gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Maxamed Cumar ayaa waxa uu markii uu horeysay ka hadlay wada hadallo dhexmaray maamulka Khaatumo iyo xukuumadda Somaliland kuwaas oo ku dhexmaray deegaanka Caynaba waxa uu sheegay in maamulka Khaatumo arintaasi ku degdegay isla markaana aysan ahayn arin loo dhan yahay sidoo kalena waxa uu fariin u diray baarlamaanka maamulka Khaatumo inay si degdeg ah u soo fadhiistaan kalfadhi aan caadi ahayn waxaan ummadda reer Khaatumo halkan uga sheegaynaa shirkii ka dhacay shalayto oo ay bishu ahayd 2016 magaalada la yiraahdo Caynabo waqooyiga Soomaaliya oo ay qayb galeen laba xubnood oo ah golaha wasiirada ee Khaatumo wasiirka amniga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Khaatumo waxay ahayd arin u dhaxaysay iyaga iyo madaxweynaha oo kaliya naguma metelaan wakiilna nagama aha waana ka xunnahay raarina kamanin sida darteed maanta oo taariikhdu ay tahay 5tii bisha 8aad 2016 waxaan ku wargelinayaa dhammaan xubnaha golaha baarlamaanka ee Khaatumo inay isugu yimaadaan shir aan caadi ahayn ama degdeg ah muddo 4 casho gudahooda oo ku aadan 9 bishan 8aad 2016 si ay uga wada hadlaan arrimahan aan kor ku soo sheegay dadweynaha reer Khaatumo waxaan ka codsanayaa inay nagu ixtiraamaan wixii ay noo doorteen ee aan wakiilka uga ahayn annaguna ku hadlayo afka golaha baarlamaanka waxaan u ballan qaadaynaa inaanu ilaalin doono sharaftooda iyo karaamadooda geesta kalena waxaana magaalada Buuhoodle maanta shir jirayd ku qabtay maamulka golaha deegaanka Buuhoodle uu hogaaminayo Cabdifarax Ali Cabul gudoomiyaha golaha deegaanka Buuhoodle ayna sheegeen inay runtii ilaa iyo shalay xafiiska golaha deegaanka shir baa ka soconayay kadib markii la sheegay xubno ka tirsan deegaankan inay magaalada Caynabo leedahay shir ku qabteen shirkaasi wuxuu keenay magaalada iyo deegaanada Khaatumo oo dhan wuxuu keenay wax la yiraahdo khalkhal buu keenay markaan isu nimi xafiiska golaha deegaanka anagoo golaha deegaanka dhamaantay aan isu nimi fulintayadii waxaan go'aansanay haddii Ilaahay uu qadaro berito oo aan shacabka reer Buuhoodle u iclaaminaynaa inuu beri ka jiro garoonka Xabada Stadium banaanbax weyn oo laga soo horjeedo mijaxaabinta iyo burburinta wixii ka dhacay Caynaba waxaan uga gudbayaa fariinteena halkan aan iyagana ugu dhaafo baarlamaanka Khaatumo inay si degdeg ah talaabo sharci uga qaadaan arrintan dhacday oo ay sharciga waafajiyaan xubnaha isku dayay mijaxaabada qodobka saddexaad doonayna ka hadlo waxa weeye berito waxaan aaminay shirkaas oo la isugu imaanayo shir banaanbaxa shirkaas waa shir nabadgelyo waa shir lagu muujinayo dareenka shacabka wuxuu bilaabmi doonaa 9 subaxnimo wuxuuna soo gabagaboobi doonaa 12 subaxnimo haddii ay baydno shirka in laga wada qayb qaato cidii arrintan sharci ahaan u lahayd inay tallaabo ka qaado oo aan doonaynaa inay tallaabo sharci arrintan laga qaado oo aan fariin u dirayno golaha baarlamaanka Khaatumo waxaan leenahay arrintani sifo aan sharci ahaan bay ku dhacday waxaan la rabaa in looga jawaabo sifo sharci ah oo laga qaado xubnihii iyo cidii ka dambeysay arrintan in tallaabo laga qaado sharciga waafaqsan iyo dastuurka Khaatumo soo wada duubo hadalhaynta u badan ee maanta goobaha maqaaxiyaha iyo suuqweynaha magaalada Buuhoodle la isla dhexmaraya ayaa waxa ay tahay natiijada ka soo bixi doonta wada hadallada u furmay maamulka Khaatumo iyo waliba xukuumadda Somaliland wasadaam Cabdullaahi Cabdi TV caalamiga